تقبل الله منكم صالح العمل وحقق الله ما ترجون من أمل وسجل الله أجرا في صحائفكم بفضله رغم ما قد كان من خلل. يا ربي أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل. يا رب زينهم بالدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا رب أسعد أحبائي الذين لهم في القلب منتجع راق وفي المقل. يا رب زينهم بالدين يسعدهم ثوب التقى وهو الأسمى من الحلل. يا رب واجعل لنا عيدا لايكي كريم شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. waxaan doonayaa inaan halkan aan wax ka idhaahdo fadliga tobanka dambe ee Ramadaan العشر الأواخر من رمضان. waxaa jirta axaadiis nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan sida xadiiska imaam muslim rahimahullahu ta'ala oo Aisha ka soo wariyay radiyallahu ta'ala anha إن تري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. النبي صلى الله عليه وسلم عبادته وحو كد ذلك تري طبعا كهبين رمضان وغدا بيسا سكا بضن انتو كد ذلك هبندي هوري أما لباتنكي هوري يبش رمضان. بخاري مسلم بقى يقول عائشة وحي كسورين رضي الله تعالى عنها إن تري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. طبعا هبيني وقدم بير رمضان مركز صوت قالان أبي لوضان نبي صلى الله عليه وسلم شد مئزره قنتي أيوب جيتي سنشري وحاي علماء كفة سيرين إن لو لتشهدو كان يعتزل على النساء دمر كيس أيوب كده يرانشري لأنه wuxuu u banbixi jiray cibaadada Allah habeenadaasi. waxa kale lagu fasiray in loola jeedo al-ijtihaad fi al-ibada fi hadhihi al-layali in nabigu sallallahu alayhi wasallam cibaadada Allah habeenadaasi uu ku dadaali jiray. marka nabigu sallallahu alayhi wasallam uu dadaali jiray isla markaasi waxay Aisha tiri wa ahya layla habeenkiisina uu nooleyn jiray. muxuu habeenka ku nooleyn jiray bidhikri wad-du'aa'i was-salaati وغيرها من أنواع العبادات. وحكون نولين شرين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى حنشرين طبعا كهبين رمضان روضنا بيا لأنه نولينته هبين كلا نولين يوم هبين كل اللي سوت شيء دو النبي صلى الله عليه وسلم هبين ذا وسوت شيء دشري يسوق الضل بعيا فلقة يا خيرك هبين ذا كشرة. سيدا علماء يقول هذين شيخ ابن عثيمين وكلا رحمهم الله تعالى أجمعين لو لم تشهدون هبين كودن أسراد النبي صلى الله عليه وسلم وسوت شيء دي. لكن وحي اسكو داري جري إن نوعية كلا دوون أو عبادة مروى تكن جري مروى ذكري جري مر قرآن وآخري جري تسبيح تهليل صدقة أنواع العبادة أي نبي صلى الله عليه وسلم وكد ذلك جري. نبينا صلى الله عليه وسلم يعني دذلك ودذال أيوه وحي النبي صلى الله عليه وسلم طلب أيي أو دون أيي هبينك ليلة قدرك oo habeenkii leelto qadriga waa la inoo sheegay. waxa la inoogu sheegay kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa lagu sheegay oo waxa lagu sheegay sunnaha nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu sheegay.
kitaabka quraanka ayaa lagu sheegay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi inna anzalnaahu fii leylati alqadri qur'aanka loola jeeda waxaan soo dejinnay habeenka leylatu qadriga alqadr hunaa waxa uu noqon karaa uu yahay macnuhu asharafu tacdiim habeenka sharafta leh ama habeenka weyn ama wuxuu noqon karaa bimacnaa altaqdiir waalqadaa habeenka ilaahay subxana wa tacaala uu kala qadaraayo wax ee sanadkaa wixii dhici doona ilaahay subxana wa tacala uu kala qadaraayo labada macnoba waa sax in la yidhaahdo leylatu alqadr habeenka sharafta leh habeenka weynida leh ama habeenka ilaahay subxana wa tacaala wax kala qadaro waxna uu kala xukumo wixii sanadkaasi dhici doona cumuuman habeenkaasi wuxuu leeyahay sharaftaa weyn ee aayadda qur-aanka lagu sheegay ayuu leeyahay waxaynu kaloo aragnay qur'aanka inuu ilaahay subxana wa tacaala uu ku yidhi inna anzalnaahu fii leylatin mubaaraka qur'aanka waxaanu soo dejinnay habeen barakaysan baanu soo dejinnay habeenkaasina waa habeenka leylata qadriga weeyaan marka tobanka habeenee ramadaan ugu dambeeya fadligooga waxaa inoo tilmaamaya in ilaahay subxana wa tacaala uu soo dejiyey qur'aanka uu soo dejiyey qur'aankuna waxaa la soo dejiyey ramadaan baa la soo dejiyey oo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu qur'aankiisa ku yidhi kitaabkiisa shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan aayadda kalena ina anzalnaahu fii leylati alqadr markaa way iswaafaqayaan oo qur'aanka waxaa la soo dejiyey bisha ramadaan oo ah habeenka leylatu qadriga sharafta uu habeenkaasi leeyahay saasaad ku garanaysaa in kitaabkii ilaahay sacaadada iyo liibaanta bini'aadamka uu ku jiray in habeenkaa la soo dejiyey weynida habeenkaasi waxaa kaloo ka mid ah ayuha alikhwa walakhawaat in ay habeenkaasi ay malaa'igtu soo degto tanazzalu almalaa'ikatu waruux waa malaa'igta iyo ruux waa jibriil baa loo jeedaa ruux waxaana loo gaar yeelo si gaara loo sheegay waa sharaftiisa iyo maqaamka weyn oo malaa'igta uu ku dhex leeyahay siduu ilaahay subxana wa tacaala uu u sharifay malaa'igtaa soo degta malaa'igtu markay soo degayso habeenkaasi leylatu qadriga waxay la soo degayaan raxmad iyo khayraad iyo barakaad ayay la soo degayaan waxaa kaloo habeenkaasi uu ilaahay noo sheegay salaamun hiya xataa matlaci alfajri habeenkaasi waa salaam oo dadka bini aadamku waxay ay ka badbaadayaan wixii ka cabsiinaya wixii shara wixii aan wanaagsanayn waayo dad fara badan ayuu ilaahay subxana wa tacaala habeenkaasi uu naarta uu ka xoreynayaa oo uu ka nabadgelinayaa waxaa kaloo inoo tilmaamaya fadliga oo habeenkaasi uu leeyahay ayuha alikhwa alkhawaan in uu ilaahay subxana wa tacaala uu ku soo dejiyey fadligeega suurad ilaa maalinta qiyaamaha la akhriyaayo tutla ilaa yowmi alqiyaama marka habeenkaasi waa habeen sharaf leh ilaahayna subxana wa tacala waxay noogu sheegay qur-aankiisa uu ku yidhi leylatu alqadri khayru min alfi shahr habeenka leylatu qadrigi waxay ka sharaf badan tahay 1,000 bilood yacni waad dareemaysaa qofka ilaahay subxana wa tacaala uu waafajiyo cibaadada iyo dikriga iyo wixii kale ilaahay loogu dhowaanayo ajarka faraha badan ee qofku habeenkaasi helaayo adba waa dareemaysaa ayuha alakh waayatuha alukhت walidaalika waxaa loo baahayay in habeenkaa la dayaco looma baahna fadliga kale in tobanka dambe ramadaan ku jira waxaa ka mid ah in ictikaafka la sunneeyey ictikaafkana waxa weeyaan qur-aankaa lagu sheegay sunnaha lagu sheegay sida imaam axmed raximah allahu tacala laga soo naqilayna waxa weeyaan culimmada islaamka oo dhammi waxay isku waafaqeen inuu ictikaafu sunno yahay mashruucna yahay ilahay wuxuu kitaabkiisa ku yidhi walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid waa ictikaafkii baa lagu sheegayaa xadiiskana xadiis caaisha fi saxiixayn waxay tiri radi allahu tacala canha كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده النبي صلى الله عليه وسلم وحي اعتكافي جري طمانك مع المواد وقدم بيا بشهر رمضان إلا وقريودي قريسي كدبنا دمر كيسي أي اعتكافي اعتكافكم ومحي وإلا لازمه مسجد كلا لازمه ومحل يقول لازمه يا وحل يقول لازمه يا طاعة إلهي وحل يقول لازمه يا عبادة وحل يقول لازمه يا وحي إلهي سبحانه وتعالى وتجعل يا خيرا أذوقنا أيها المؤمن وأيتها المؤمنة وحل يقابه هي إن أد طمانك 20 رمضان سو صعدا أد أديار قرودو سيدي أد وقفها إذا سلهد أد خيرات كاسفرها بدن إلهي سبحانه وتعالى إنه شيء له لها وأنا قفكي مسلم كانوا نقون قف كقضي عبادوين كاسي يا خيرات كاسي يا بركات كاسي سيد ديار قرو وهدي طمانك 20 دن أد اعتكافي كرتو اعتكاف
haddii aad maalmahaad shaqada ka fasaxatahay aad ictikaafi karto maalmahaasi ictikaaf haddii aad xitaa habeen ictikaafi karto ictikaaf laakiin waxaa loo baahan yahay habeenadaasi siduu nebigu u soo jeedi jiray ee uu habeenkiisa ugu nooleyn jiray maalinka maanta ah dikriga iyo ducada iyo magaranaysaa cibaadooyinka kala duwan ayaa loo baahan yahay inuu qofka muuminkina uu sidaasi u dadaalo leylatu qadriga sida uu nebigu yidhi sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi waxaad ka baadhbaadhaan ood ka daydaydaan tobanka habeenee ramadaan ugu dambeeya sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi kama fi saxiixayn albukhaari wamuslim taxaraw leylata alqadri fi alcashri alawaakhir min ramadaan waxaad ka eegtaan ood ka baadhaan tobanka habeenee ugu dambeeya maxay ramadaan ugu dambeeya waxaana aad iyo aad loo rajaynayaa inay yani habeenada awtaarta ah ay u badan tahay awtaartana waxaa loo sii rajaynayaa inay tahay habeenka 7labaatanaad xadiiska ubay ibnu kacb radi allahu tacaala canhu imaam muslim baa soo wariyey wuxuu ubay uu yidhi radi allahu canhu wallahi la aclamu ayu leylatin hiya alleyla alatii amaranaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam biqiyaamiha hiya leylatu 27 wuxuu ilahay baan ku dhaartee la aclamu ayu leylatin hiya alleyla waan garanayaa buu yidhi habeenku nebiguna amray inaanu kacno oonu qiyaam iyo cibaado aan u kacno wuxuu yidhi waa habeenka 7labaatanaad weeyaan cumuuman siday culimmadu yidhaahdeen habeenka leylatu qadrigu wuu isbebedelaa oo sanad inuu 7labaatanka noqda laga yaabaa sanad kalena uu 5labaatanka wahaakada ilaahayna wuxuu u qariyey si u arko addoomihiisa kuwa dadaalaya ee cibaadada u furfuran ee u heelan ee doonaya inay ilaahay caza wajal ugu dhowaadaan camalka saalixa alxaafid ibnu xajar raximah allahu tacaala ayaa fatxu baariga waxa uu ku yidhi arjaxu alaqwaali annaha fii witrin min alcashri alakhiir wa annaha tantaqilu buy aqwaashata ugu raajaxsani waa inay tahay in habeenada witriga ah ee magaranaysaa tirada isdhaafsan tobanka ramadaan ugu dambeeya wa annaha tantaqil inay warwareegtana oo sanadba ay habeen noqoto 7 5 9 wahaakada waxaa muhima ikhwaani akhawaatii ramadaan way nagu soo socotaa tobanka ugu dambeeya in lagu dadaalo waxa ugu weyn ee la dareemayo axaadiistu ay noo tilmaamtay nebigu sala allahu calay wasalam fadliga habeenka leylata qadriga wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam kama fi xadiisi abi hurayra walxadiisu fi saxiix man qaama leylata alqadri iimaanan waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min denbihi allahu akbar ikhwaani wakhawaatii man qaama leylata alqadri qofka habeenka leylata qadriga yacni tukada ee taraawiixda ka qayb galaa iimaanan waxtisaaban iyadoo ay iimaan ka tahay uu ilaahay rumaysan yahay ilaahay rumaysan iimaanan billaahi wa iimaanan bihawaabiha wa jazaa'iha uu rumaysan yahay in ilaahay subxaana wa tacaala iyo fadliga iyo ajarka habeenkaa laga helaayo iimaanan waxtisaaban iyo ajar dalab uu ilaahay subxana wa tacaala ajar uu kaga dalbaayo marka ayaynayna dhaafin lianna nebigu sal sl wuxuu qofka sidaa u kaca habeenkaasi leylata qadriga ee tukada ee qiyaamka la yimaada ee taraawiixda ka qayb gala quufi isagoo iimaaniya ixtisaab ay ka tahay gufira lahu ma taqadama min denbihi wahunaa waxaan doonayaa inaan ishaareeyo in nebiga sala allahu alay wasalam laga soo wariyey inuu yidhi man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla waa xadiis cadiima man qaama maca alimaam xataa yansarif kutiba lahu qiyaamu leyla qofka habeenkii taraawiixda la tukaday imaamka ilaa imaamku uu salaadiisa dhammaysanaayo taraawiixda uu dhammaysanaayo 11 hadduu tukaday 3 hadduu tukaday qofka imaamka la jooga ee la tukada habeenka waxa weeyaan taraawiixda ah waxa loo qoraa ajarka qiyaamul leyl marka sunnaha al-aqrab ila sunna waa 11 ragcadood laakiin imaamka aad la tukanaysa hadduu 3 ragcadood tukanayo ha ka tegin ee la dhammaysto 3 si aad ajarkaa weyn u hesho waxa ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa an yuwaffiqna leylata alqadri ilaahay leylata qadriga sanadkan soo socda horta uu nolol inagu gaarsiiyo ilaahayna subxaana wa tacaala uu ina waafajiyo oo inooga dhiga fi hadihi leyla yani habeenkaasi barakada iyo raxmaadka iyo khayraadka iyo sharafta badan leh inuu ilaahay subxana wa tacaala inaga dhigo kuwa u fudeediyey ee u waafajiyey cibaadada iyo qiyaamuleylka iyo soo jeedka iyo dikriga iyo tilaawada qur'aanka una inaga dhigo kuwa ilaahay inaga iyo axbaabteenna caruurteenna wiilal iyo gabdhababa waalidiinteenna iyo dadkaynu jecel iyo muslimiintaba
من عتقاء شهر رمضان من النار. اللهم بلغنا رمضان بفضلك ومنك وكرمك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.